بسم الله بسم الله السلام عليكم أدبان إذي سلام يا صاحب هذا ملك استو جوكتان كالي صدقوا كصدقوا برنامج حساب بدن وكحيس قلين دونه wax badan aad ka faa'iideysan doontid gaar ahaan haddii aad tahay arday iminka wax barto haddaba barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in ay ka faa'iideystaan qof kasto xataa Soomaali ma qof kasto oo yaqaano afka Soomaaliga ee haddana arday ah ayaan ugu talagalnay barnaamijkan in wax badan ka faa'iideysto haddaba waxaan maqalnaa iskuulada jaamacadaha kolleejyada dad fara badan oo dhigto oo ka cabaadayo max yar ama dhibcooyin yar inay ka helaan natiijada waxa dhacdo markii imtixaanaadka ay soo baxaan ardayda inay murugo badan la soo korodho markii la dhaho imtixaankii baa la soo dhajiyay qofka uu ka fakirayo war maxaad heli doontaa haddaba waxaan kula wadaagi doonaa maanta qaabka ugu fudud ee casharada loo akhristo ee ku ballan qaadayo inaad ku guuleysatid oo waliba aad haysid dhibcaha ugu wanaagsan anaa ku ballan qaadayo hadduu ilaahay ka raali noqdo waadna ii mahad celin doontaa markii natiijadaadii ay soo baxdo haddaba maanta waxaan la wadaagi doonaa 5 qaab amaba 5 qodob oo loo aqriyo buugaagta amaba casharada lagu siiyo shantaas waxay ka ballan qaadaysaa ay ku tusaysaa inaad noqotid ardayga ugu horeeya ee galaaska haddii aad secondary school tahay haddii aad college student tahay haddii aad university student ama jaamacad aad dhigatid ay tahay haddaba shantan qodob waa shanta qodob ee aan ka bartay inta aan wax baranayay noloshayda taas oo waliba guul la taaban karo isiisa alxamdulillah ayaan maanta la faa'iiday la wadaagaya haddaba waxaan ka codsanayaa qalin inaad hoos ku qoratid waqti badanna siisid 5 qodob oo kali ah isku day adiga waxba kaama cunayso 5 qodob ee ugu wanaagsan ee loo akhriyo casharada haddaba qodobka ugu horeeya waa wax akhris dulmar tusaale oo kale buuggaan aad haysataa ama warqadan waad qabanaysaa waad dulmaraysaa casharadii sidaa u joodid tartiib baad u dulmaraysaa ilaahay kuma darnaado aad marka xilligan oo aad waxbarasho wax akhris dulmar wax akhriskan kuma fogaanaysid oo uma baahnid inaad fahantid erayada uma baahnid inaad si qoto dheer u akhrisid uma baahnid inaad ilaahay kuma darnaadee aad slow u akhrisid waxaad u baahan tahay buugga markii lagu siiyo inaad buugga from bilowgii ilaa dhammaadkii aad baalbaal u fiiriso markaad beedkaas u dhamayso waxay ku siinaysaa clue amaba idea ah wixii aad akhrin doontay fakir baad already ka helaysaa muhiimadda ugu weyn xilligaas waxay tahay inaad fakir ka hesho bas maahan inaad fahanto haddaba qodobka labaad maxay tahay wax akhris degan marka xilligan kii horena oo kala ma ahan midkan waad akhrinaysaa buugga saad u joodid ilaahay kuma darnaadee kan xoogaa deganaad u akhrinaysaa laakiin si qoto dheer uma akhrinaysid xilligan waxaad fiirinaysaa wixii aad soo akhrisay ee aydiyadii aad haysatay baad eegaysaa adoona qoto dheer siinaynin oo ilaahay kuma darnaadee waxbarashada markaasi muhiimadaada ahayn inaad word by word ama erayada aad fahantid laakiin tartiib baad u gedinaysaa waxaad qiimeynaysaa wixii aad soo akhrisay ilaa page-ka ugu dambeeyo qodobka saddexaad waa qodobka la dhaho wax akhris fahan xilligan wax akhris fahankan waxaad samaynaysaa kii hore oo xilligan aad fahmaysid xilligan marka waxaan rabnaa inaan fahanno wixii aan si dulmar iyo degan u akhriyin inaan fahanno xilligan marka waxaad fahmaysaa oo aad isku dayaysaa erayadii macallinka uu ka hadlay erayada waaweyn ee macallinka aadka u discuss gareeyay kuwii waxaad samaynaysaa wax la dhaho highlight
sida hadda halkan kaaga muuqato kale waad highlight garaynaysaa sida halkan u joojid oo kale highlight baad samaynaysaa ereyada culus baad kor ka xariiqaysaa oo aad is leedahay ereygan wuxuu xambaarsan yahay sababtoo ah buugga markuu weyn yahay kulli buugga waa muhiim laakiin waxaa jiro ereyo oo ah very critical oo muhiim ay tahay inaad fahantid ereygaas haddaad fahantidna wuxuu kuu suuragelinayaa pagekii oo dhan inaad fahantid marka xilligan waxaad samaynaysaa waa underline garaynaysaa ereygii baad hoos ka xariiqaysaa ereyadii cuslaa iyo weynaa adigoo markaan isku dayayo si fahmad qoto dheer inaad u fahantid cashirka aad akhrinaysid haddaba qodobka afraad baan fiirinaynaa waa kee qodobkan waa qodobka dadka soomaalida inta badan ay jecel yihiin ee la dhaho wax akhris xifdis waa ogahay inaad sugaysay xifdin dadka dad badan oo aniga aqaano xifdintii aad u jecel yihiin imtixaanaadkooda markay gelayaan way xifdiyaan inkastoo aniga aan jeclayn xifdinta oo 5 istaraatiijiyo haddaan idiin sheegay aan weligay aan isticmaali jirin marka wax akhris xifdintan laftirkeeda waxay u baahan tahay in la fahmo uma baahnid inaad buugga intaad soo qabatid asaga dhan xifdisid waxaad u baahan tahay xilligan inaad xifdisid ereyadii muhiimka ahaa ee aad soo xariiqday hoosta ka xariiqday amaba aad soo underline garaysay ereyadaas markaad xifdisid oo aad fahantay waxay kaa fududaynaysaa buugga wixii ku jiray oo dhan inaad soo xasuusatid waxay kaa fududaynaysaa ereyadaas oo aad xifdinaysid oo aad fahantay inaad abuurtid ereyo fara badan oo ayaga u dhigmo laakiin aana buugga ku oolin markaas waxaa la dhahaa wax akhris xifdin marka dhibaatada ugu weyn ee dadka inta badan soo wajahda waxay tahay waxay isku dayayaan buugga word by word inay akhriyaan hadduu qofka word by word dhaho inuu akhriyo waqti badanna wuu gelinayaa labo fahankiisii baa yaraanaya qofka waxba hadhow hal abuur ma yeelan karo waxaa kaloo uu samaynayaa arrintaas sababaysaa wax la dhaho caajis qofkii dee inuu dhaho waxaan oo dhan sideed u waxayn kartaa laakiin stepska haddaad raacdid oo calaamadihii ay raacday ereyadii underline bas aad xifdisid oo aad fahantid waxay kuu suuragelinaysaa maskaxdan inay wax badan abuurto hal abuur badan inay yeesho wax badan oo xataa ereyo badan oo meesha ku jira inaad keentid maadaama aad fahantay haddaba akhriska ugu dambeeyo last but not the least nambarka shanaad qodobka shanaad waa wax akhris ku celis xilligan marka waxaan rabnaa inaan ogaano wixii aan soo akhrinay bal maxaan ka fahanay sababtoo markaad akhrinaysid waxaad wax u akhrisay inaad fahantid waxaan marka akhriskan waxaad ka bilaabaysaa meeshii dulmarkii ilaa meeshii ugu dambeysay xifdin maskaxdaadii yaad tijaabinaysaa wax intee leeg ayaad baratay xifdi markaad samaysid wax akhris ku celis baa waxaad samaynaysaa conclusion baad la imaanaysaa wax la dhaho summary ama waad summarize garaynaysaa amaba wixii faraha badnaabaad buug waxaad samaynaysaa buug wax hal page intaan la eg baa waxaad ku samayn kartaa amaba ka yar baad buuggii 100 page ahaa aad ku summarize garayn kartaa macnaheeda ma ahan dee caqligaada waad fahmi kartaa buug baalka intaan la eg laguma qori karo wixii aad soo qortay laakiin waxaad ku qoraysaa summary wax la dhaho ama summary maxaa la jiray waa summarize garaynaysaa summary waxay tahay soo koobid buuggiyo dhanaad soo koobtay asaga dhanaad waxaad ku soo koobtay wax hal page ka yar arrintaasna waxaa la sameeyaa marka imtixaanaadka la aadayo markaad aadaysid qofka hadduusan summary aqoonin wuu ku fail garoobayaa 100% ama hadduu baasana wuxuu helayaa average marks marka waxaad sameynaa hadduu ilaa yidhaahdo summary-gaasaad sameynaya marka 5 qodob aad dhamaysid baad waxaad isku dayaysaa waad ku celcelinaysaa akhrintii kadib waxaad sameynaysaa summary-gaas adigoo fiirinayo key wordskii ereyadii ugu waaweynaa ee meesha la kaafagareeyay aad baan idin salaamayaa asxaabta haddii uu idin qanciyey videogan waxaan kaa codsanayaa 2 wax oo kaliya inaad like tiraahdid subscribe na tiraahdid si xilliga dambe ee video saan oo kale oo adiga muhiim u ah dadka walaalaheena Soomaaliyeed ama dhamaanteen markii aan saan u soo geliyo ku soo dhaco waxaan kaa codsanayaa labadaas inay wax caawiso like inaad siiso iyo subscribe aad baad u mahadsan tahay
waxaan idin rajeynaya waxaana kaa ballan qaadayaa haddii shantan aad samayso in aad imtixaanka ku guuleysato hadduu ilaahay kala noqdo insha allah kadibna aad iisoo noqotood fariin iisoo dirto oo aad tiraahdo ismaaciilow aad baad umahadsantaa saaxiib ismaaciilow waad caawisay stepskii amaba shantii qodob aad ii sheegtay wax badan ay nolosheeda ka bedeshay aad baan idin salaamayaa dee waxba kuguma adiga lacag free macnaha lacag qarash ma ahan inaad wax soo aqrisid ood isku tijaabisid wixii aad heshay waxay kuu kordhinaysaa bas maskaxdaada inay kobcdo aad baan idin salaamaya meel kastood joogtaan maalinta ama habeenka idin wacnaado